warsoo dhawaada saaxiibayaal war degdeg oo haddana soo gaaray wuxuu sheegayaa wasiir Shabalaas in xabsiga la dhigay 3 maalmood wuxuu ku jiray qaybta CID-ga ee dambaarista ugu dambeynna waxaa loo gudbiyay xabsiga dhexe ninkan waxaa lagu soo eedeeyay inuu soo gudbi jiray muuqaalo dhaqan xumo ah dabcan YouTube-kiisa waa la socotiin inkastoo hadda ciyaal xamarka waxaan ay caadi u arkaan laakiin waxaa jira oo macnaha diinta iyo dhaqanka hor imaanayo dabcan ninkan nin iska dhalinyaro iska shaqeysto YouTube-kan ka bariiseeyo ahay waa ka xumaa horta wixii ku dhacay aniga kuma faraxsani dabcan waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay u fududeeyo xabsigaas laakiin waxa xaqiiqa ninkan inuu xabsiga ku jiro 5 maalmood uu ku jira 3 maalmood CID-du ku jiray 2 maalmoodna wuxuu ku jiraa xabsiga dhexe dabcan TikTok-giisa waa aragteen 5 maalmood ugu dambeysay wuxuu soo dhigo YouTube-kana 2 maalmood ka hor ugu dambeysay xitaa muuqaalada hadda la soo galiyay dabcan muuqaalo diyaarsanaayo qofka adminka u haya muuqaaladan soo dhigayo laakiin ninkan wuxuu ku jiraa xabsiga dhexe muuqaalada lagu haystan waa muuqaalo dhaqan xumo ah macallin Mahdi ayaa ninkan soo xiray asaga kaligiisa u jeedaan laakiin waxaa jira ciyaalo TikTok muuqaalo dhaqan xumo ah kusoo gudbinaya dawladda waxaa ka codsanaa wasiir Shabalaas ha ku ordinine dadkan waa dadka mudan in la soo xiro dadkan ninkan inta iska dhaaftiin dadkan walaalayaal oo soo xira ninkan nin iska bariiseenayo waaye nin dhalinyaro waa ma tahriibin wadankiisa oo xirfad la imaado